waxa la yiri 26 June January ilaa June 26,800 oo litir oo khamri ah ay ciidanka boolisku qabtay boqolkiiba 10 kama aha ciidanka boolisku waxa uu qabtay wixii dalka soo galay 10,550 xashiishada oo laba nooc ah tii la laabayay iyo tii sanka laga qaadanayay iyo mid dareero oo xididka xataa lagu mudo isugu jirta iyadana waa la qabtay waxa kale ciidanka boolisku qabtay maaragtay 1,500 caagado isbiirta 10,001 qofna waa eedeysan baadagada halka waxaad ka fahmaysaa 10,000 qof 1,001 qof ayaa eedeysana lixda bilood oo la hayaa halka waxaad ka fahmaysaa xadiga ay daroogadu ku leedahay wadankeena ayaad ka arkaysaa anagu boolis ahaan markaan analysis badan eegnay research badan sameynay wax badan eegnay horta bahalkan xagu ka yimaada marka koobaad maxaa ujeedada laga leeyahay waa maxay ayaan anagu baaqno sidii wasiirka arrimaha guduhu sheegay marka koobaad wuxuu ka yimaadaa wadamada jaarka inala hodhan iyo kuwa maaragtay caalamka badana wuu inaga soo galaa imika 5 bilood ka hor ama 4 bilood ka hor 400 litir ilaa 850 kartoon markabsida ayaan ku qabanay kadib ayaa laga soo dejiya oo nima jeeri wateen wali lama baabin ilaa imika uu yaala maxkamadda ayuu yaala laakiin boqolkiiba 95 waxay nooga yimaadaan wadamada dariska nahay iyadoo wadanka ugu badan inooga yimaadaan ay tahay wadanka Itoobiya waa maxay waxaas waxa la tijaabiyay markii dambe in xataa inaga inta la dhaxmariyo xashiishada in Yemen loo dhoofiyo ayaa la tijaabiyay taas horta waxa weeyaan marka koobaad xaq inooga yimaado way ujeedooyinka laga leeyahay markaan waxyaabo badan anagu daraasaynay waxaan u fahamnay inaanu ahayn wax ama ganacsiya ama qof iska keeno ama koox iska keento faa'iido doorisa laakiin ay tahay wax istiraatiijiyada oo fikra oo la doonayo imika inagoo historyga caalamka ba soo aragnay China soo kale 100 sanadood baa lagu waday si ay u baabaan laakiin kadib bay wixii keenayay iyo wixii cabayay iyo wixii weyn la yeelay soo kacay ana waxaan isleenahay ujeedo fog baa laga leeyahay bahalka haday tahay diinteena haday tahay maaragtay wadankeenan iyo badaheenan marka si hoos wada hadallo ana waxaan isleenahay waa wax ka fog koox ganacsi doonaysa inay keento waa wax ka fog hatta waxyaalo badan oo aanu hayno halkaan ka sheegay baxta jira waxa ku cadeynaysa qaabka loo keenaa waa sidee horta marka koobaad bahalka markii uu ciida ka batay uu farabatay wada kasta oo wadankeena uu ka soo gala tuulo kasto dalkeena inta badan waa la geeyaa magaalooyinkeena xaafad walba uu yaala waa bahalkaas ku jira daraagiskii khamriga xashada iyo waxaas waa la geeyaa aroosyada miyiga laga ciyaaro aroosyada miyiga ayaa la geeyaa lagu cabaa marka waran aroosyada tuulayaasha cidada sababta tuurihi agtiisu yaala bulshada keenaysa ha isku jirto laakiin bulshadeeni baa iibinaysa qarinaysa socodsiinaysa maxaa lagu soo qaadaa bahalka horta gaadiidka khudradda waa la soo saaraa gaarigaas basal buu sida gaarigaas baradhu sida waa la soo rarayaa 6 jawaan baa ku jira 7 jawaan baa ku jira 400 jawaan buu sida 10 jawaan baa ku jira 10 kaas waa 10 calaamad gaar leh waa 10 huruuda waa 10 casaana iyagu way yaqaaniin ilaa dikala uu kaga dhaxlumayaa ayaa ku jira caanaha waa lagu soo qaadaa caanaha oo imika inooga yimaada meel kasta waa lagu soo qaadaa
وشركان عانا ما تقانيد ولا جو سوق هذا طلابة خضرة دوار بوليس كوف الشري طلابة عانها أنا ولا في الشري عانا إسلامها أي حتى إسلامها أي صوح مبارة حد كان يمكن حد كان دي لبضة وشالوا كويت ترتيس كتيرة فلاسية دي الشاها وبون لقى دقيقة لقوا سوق هذا وبوليس كوقت وفر بدن عاقد الله صوح مبارة دمك صوح مبارة من الجوارد اللي فهمي أي لقبت وعلى جزء هذا بابورته استبنجن لو ترى لي استبنجا أي أنت الله بتشريه قاعد يصدق استبنيس كسته صدق هذا حشد ضل مسوق قرية ما خمر وأنا استبنجي قاعد كوره وحلقوا سوق هذا تمركه نوع كسيته ولا وصح حلا سيدي ميلويك وصح حلا سا إلا كورلا كل يدو أوروين بيكوي مرسا وتمر كاسو محط كجرا وبوليس كوق قبته ولا فشلي بالك هو إنه يصح حلا وحلقوا سوق هذا أنت فراش وين وبلارنا ميس كالك لقى دقاي أي قفل يروح بكانة لدور سياحي كيس تبع يروح بكانة سودور سياحي فراش وين وبلارنا أو شم بقول أو كيلو أو حشيشة الله جو حراي أي اللي هو قف دكتور كوس عضو وبكا وسكرات هو يسكون في الشليه وكسر صار وحلقوا سوقري فراشية عادي أنت لقوا سوق قري مرة وين بالا سميريا ولا قري فراش بالي ولا تولي هو فراش أي أنت اللي يسكون صار لعبة قاعد تون مرة توش على صاريا وفراشية هالجيش اللي بيصير وأنا مرة عصبة فراش وأنا حشيشة والله قبت وبوليس كتانو في الشليه قاد كي بالو سو دخقري قاد كي ايا غاري قادو وي هايو كلابر سو مريو لا عاشورايو ابار سو مريو لا عاشورايو ايا انت دوشنا وخوغا مردوفيا لو سو خيري هوستيرا خمر iyo xashiishad ba ka buux waana gaari qaado caadi oo la cashuuray markii uu dambeysay meelaha daba xidhka waxa laga dhaadhiciyay marka dumarka ileedku waxa laga dad waaweyn baa tiiro ama dad iska wada wanaagsan baa tiiro intiina wana toos-toosreed baa isku tiibay marka dumarka waxa la yiri gabadha buurnida imika waa la cul oo caalamkuna waa la cul inaguna la cul bayna waxa la haday nuugta bahalka laba mid maalintii waa dhuubanaysa gabadhida wanaagsan bay bahashameeda fikran dadka dad diin la maaha inta badan uu iska nuugaya taas waa qodob suuqa lagu gariya oo lagu iibiya waxa dhalinyaradan ardayda ama dhalinyaradeena joogta maaragtay gaangiski waa kibarihii inagu badnaa ee dhalinyarada burcadayda istiri jirtay waa tii inagu badnayd waxa la oranaya markaad ku dhufato waxaad noqonaysaa geesi libax waxba iska celinaysa especially bahashan xashiishada leerana khamrigu qofu markuu cabo uu iska libaxiyaya laakiin bahasha xashiishada leerana buugaana ka talaabsan karimaysid adduunyada gebigeeduna jeebkaaga inaad ku jirto ayadu qaadanaysa waxyaalaha sababa imika 10 inan baa kufsaday inan 5 baa kufsaday waxan baa kufsaday iyada number 1 hatta qof qafriga cabaa uu kala haraa waxa la oranaya geesi baa tahay libax baa tahay dabadna ciyaar kula tiistiri jireen taasuna waxyaalaha fududeysa weey waxyaalaha fududeeya waxa kamid ah sidii qoladii ugu horeysay sheegtay dad badan baa la soo celiyo dibadda laga soo celiyay oo dadkeena ah oo bahashan caba oo bahashan ka ganacsada ayaa la soo celiyay kuwaasuna way fududeeyaan waxaanu qabanay ragga ugu tijaarsan ragga ay dhaleen ragga ugu maaragtay imika rag ra'iisul wasaarayaal soo noqday ragga ay dhaleen oo inta dibadda looga soo mustafiriinta ganacsadaan imikana aan ganacsadaan qaban mana yara dadka noocaas waa waxyaalaha hooyga sponsorka waa ee u fududeynaya marka waxay noqotay dadkii inuu qofku waliba baliiraa iskaga eeg qof waliba bariyo jabadahay ayaa jabad watiiska hawl dagaal bal iska jiray shirkaan ba wax yar baa la soo helayaa 100 euro lacag ma saab shirkaan khamri ku soo shubaya 700 khamriga waxa barasoo waa lacagti been wada soo qabsoo war waxayba ku jiraan igu shub ila baaga bay ka soo shubeen moogti ragii waa wanaagsan oo baa ku saaqidi jiray 700 dhalinyarada waxa baabeen oo korcabo geesi baa kale libaax kari ay mugsan kana soo ku eeg waa aad u adag ugu dambeyn horta waxa soo dhanbaa jira annagu hadaba booliska hadaan nahay annagu waxa soo jeedinaa bahalka koortiisa looga hortagay aanu aragnaa horta way wacyi gelin balaaran sameeya bin aadmigu hadaan ogeyn waxaan wuxuu yahay
kama hortegi karayo haddaan community policing la helin oo booliska iyo bulshadeena kala nooca dawlad iyo shicib nooca doontaa la baraarugin xashiishadu aqal bay taala jaarku uu yaqaana khamrigu aqal buu yaala jaarku uu yaqaana inan kaaga keena jaarkaaga keena saaxiibkaaba keena waynu wada naqaan dadku markuu dareemo waxaan wuxuu yahay ayuu dadku la wada dagaalami karaa anu waxaan qabnaa in dawladuna wacyigelin ballaaran samayso bulshadu noocyada kala gedisan wacyigelin ballaaran la sameeyo oo waxaan aynu leenahay wax laga hadlay social media iyo kuweena qarankaba la adeegsado wasaaradda arrimaha gudaha xeerarka iyo ciqaabaha ka hadasho wasaaradda waxbarashadu ka hadasho manhajka lagu daro ardayda wixii u balaarin baqso maxay la baraajiyo wasaaradda caafimaadku xanuunka iyo cudurka iyo wuxuu leeyahay ka hadasho dhaqanku ka hadlo dhaqanku anagu booliska noo dadka mid ka sakhraasina si daawa dhaqanka suldaamada halkaas oo fadhiya qaar maqaniba marka nimka qabta ka sakhraassan wuxuu ku leeyahay maanta si daawa hebeli maanta si daawa hebeli maanta si daawa hebeli maanta si daawa hebeli baad ka dadka dhaqankii waa in page ku yeeshaan wacyigelinta waa in hadlaan waa in dadka la baraarujiyo culimada waa in wax baraarujiyo oo ay wacyigelinta qayb ku yeelato wasaaraddeena awqaaftu waa in ka noqotaa madaxo culimada iyaduna laga hadlo dumarku waa in ka hadlaan xaafad aan saldhig lahayn xataa miyada askarta xoolaha raacda meelaha bulshada isugu timaada miyiga xataa dhex socdaan oo ay kala celiyaan boolisku meelaha joogin ma jirto wax alla waxa dalkeena oo dhan meel kasto dad Soomaaliland ay joogan askar baa ku nool tuulo walba ku nool xataa tuulada meelaha la isugu yimaado dispute ka jiro ay askar joogtaa waxaynu u baahanahay in inta dareenka la wada qaato oo haddaynu dadku dhan wacyigelinta marka la sameeyo laga hadlo dadku baraarugay waa dadku inaga yimaadeen dadkeeni ayaa maamula markaas la baraarugayaa dabeetana waxa imanayso la gaaraya marka dambe community policing uu sheegay wasiirka caafimaadka inuu ku guuleysano oo la yiraahdo waa askari boolisow xaafada khamriya xashid baa lagu iibiyaa waa askari boolisow halkaas uu ku yaala waxyaalaha la gaaro waxa ka mid ah markii kii la keenayay ciida ka batay ayaa markii dambe la fikiro dalkan ku beer shacabka halkan waxaan ku soo jiray 8 geed oo mid walba ninka fadhiya ka weey halkan maxkamadda horteeda 15 geed baa laga soo jiray halkan baleed beer aqalka maxkamadda kaymahan ka xiga beera niyo hargeysa waa laga soo jiray hargeysa 7 meelood baa laga soo jiray daar salaam 4 goor baa laga soo jiray arabsiya laga soo jiray meel aan laga soo jirin ma jirto waxaynu gaadhnay marka dambe markay inaga badatay tii imareysay in inagii laynagu beero marka bahalkan horta dhibaatadaas oo dhimina way jirtaa bahalkan ciidu ka badan yahay waana wax maaragtay problem istiraatiijiyada anigu waxaan qabaa sida looga hortagayna dadka oo la kiciyo oo bulshada aynu baraarujino noocyada kala gedisan bulshada wacyigelin samayso TV-ga laga hadlo ilaa cadda laga hadlo oo dadku baraarugo mooyeen inay ka hortagi kareen